رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إلaahay subxaanaه wa tacaala mar allaala markuu tilmaamay inay jiraan dad samaawaadkii arlada isbeddelka habeenka iyo maalinta ka fakara oo ogaada inay aayaad ugu jiraan dadka ulul albaabka ah. kadib markuu rabbi ka hadlay dadka rabbi xuse ayagoo taagan oo fadhiya haddana jiifa, markuu ka sheekeeyey kuwa ka fakara samaawaadkii arlada abuurkooda oraahdooduna ay tahay rabbanaa maa khalaqta haadaa baatilan, rabbigeeniyow kani baatil iyo ciyaar uma abuurin, adigaa xumaan iyo nusqaan iyo ceeb ka hufan oo ka nasahane, naga badbaadi cadaabka naarta ah. rabbi markuu ka waramay dadka dhahaya ilaahayow qofkaad naar geliso waa dullaysay oo waa dulloobay, daalimiintana wax gargaar ah ma laha. ilaahayow waxaan maqalnay ku dhawaaqaya oo orahdiisu ay tahay an aaminuu birabbikum, rabbigiin rumeeya. markaan maqalnay waa rumaynay. rabbiyow dembiga noo dhaaf, qaladaadka aan galnayna naga astur oo naga tirtir, na oofso anagoo baariyaasha ku jira, na sii wax allaala wixii aad noogu ballanqaaday rusushaada carabkooda, hana hoojinin maalinta qiyaamo, adiga waxaa tahay mid aan ballanta ka bixin. dadkii noocaas ahaa ilaah wuxuu ka yidhi fastajaaba lahum rabbuhum, rabbigood ayaa ka ajiibay hadalladii ay ku hadleen, waxay ilaahay ka tuugeen, cadaabkay ka baryeen in laga badbaadiyo. fastajaaba lahum, wuu ka ajiibay, wuu ka maqlay rabbigood, wuxuuna yidhi anigu ma dayacaayo, ma tirtaayo, ku ciyaari maayo camala caamilin minkum, shaqaale shaqo qabtay oo idinka mid ah, min dakarin aw unthaa, lab ahaaya ama dhadig ahaataaba, waayo bacdukum min bacd, gobolkiin ayuu gobolka kale ka ahaaday. idan waxaa la helayaa dumar sida alla tilmaamayo wanaag fara badan leh, taariikhda baal dahab ah ka galay, diinta say ragga ugu dhaqmeen si ka daran oo ka badan ilaahay u caabuday subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah khadiija binti khuwaylid. khadiija mataqin khadiija, maxaa idin ogeysiiyey khadiijo? ilaahay subxaanahu wa tacaalaase diintiisa heerkeebay ka gaartay? maxay ahayd taariikhdeeda? sharaf iyo ammaan, cizi iyo qiimo waxaa ugu filan inay u dhaxday sayidulmursaliin, mursaliinta sayidkooda. sharaf iyo ammaan, qiimo iyo waxaa ugu filan khadiijo inay noqotay ummulmu'miniin, mu'miniinta hooyadood. wax allaala waxa iimaan ku abtirsada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala rumeeyey
oo mu'miniinta ummadda nebi moxamed ka mid ah dhammaan yay ummi u noqotay. hooyo ayay markaa u noqotay fakhri iyo xasab iyo faan. intaasaa kaga filan khadiija radia allahu canha. zawjaadka nebiga sala allahu calayhi wasalam tii ugu horeysay ayay ahayd baa la yidhaahdaa khadiija radia allahu tacaala canha. caruurta nebiga uu dhalay oo dhan hooyadood ayay ahayd baa la yidhaahdaa ilaa ibraahim maahane. qofka ugu horeeyey ee risaalada nebi moxamed rumeeyey khadiijay ahayd ayaa la yidhaahdaa. manaaqibta, sharafta, taariikhda ay leedahay khadiijo ma aha wax meel lagu soo koobi karo, ma aha waxay qof kasta iska heli karaan, ma aha shay layska heli karo oo si khiyaali ama riyo lagu heli karo. annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unthaa. dakar iyo untha wuxuu raba ha noqdo, qof islaamka ku dhaqmay, ilaahay aaminay, diinta u halgamay, xoolo iyo maal iyo naf u bixiyey, ilaahay ka dayici maayo subxaana wa tacaala. annii laa udiicu, anigu dayici maayo buu dhahay alla subxaana wa tacaala. shaqaale shaqo uu qabtay, caamil camil uu sameeyey oo idinka mid ah mu'miniinay, idinka mid ah dadka ulul albaabka ahow, oo min dakarin aw unthaa, ama dakar ahaado ama untha waa dhadige, waayo bacdukum min bacd, gobolkiin gobolka kale ayuu markaa ka ahaaday. um lmu'miniin saydata khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha. intaa aan soo sheegnay ayay ahayd. maxaa u dheeraa taariikhdeeda? faman hiya, yay tahay? waa khadiija binti khuwaylid bin asad bin cabdilcuza bni qusay bin kilaab alkhurashiy alasadiy ayay ahayd. hooyadeed waxaa la oran jiray waa khadiije faadima binti zaa'ida bani caamir bin lu-ay bay ka ahaatay ayadana. hooyada ayaa markaa dhashay saydad khadiija, ilaahay ha ka raadi noqdee. waxaa la dhalay sanadkii caamulfiil, inta aan la gaarin 15 sano ka hor ayay maka ku dhalatay. caamulfiil waa sanadkii nebigu uu ku dhashay sala allahu calayh wasalam. 15 sano ka hor intaysan dhicin xaadithada asxaabulfiil ayay ayaduna dhalatay khadiija radia allahu tacaala canha. magaalada maka ayay ku dhalatay. aabbaheed khuwaylid wuxuu ku geeriyooday ama uu ku dhintay baa la yidhi dagaalka iyo xarbadii lagu magacaabahayay xarbulfujaar. taariikhdaanu ku soo qaadanay. qofkii horay u xasuustaa waa dagaalkii xaramka gudihiisa ka dhacay iyo dhulkii barakaysnaa oo ay u bixiyeen xarbigii fujaar. kaa ayaa aabbaheed gudihiisa ayuu markaa ku dhintay. khadiija binti khuwaylid intuusan islaamku imaanin oo ay diinta nebi moxamed qaadanin oo jaahiliga lagu jiray 2 jeer bay guursatay. meesha maxaan ka fahmaynaa 2 nin inay markaa soo guursatay. waxaa lagu kunyeyn jiray khadiija ummu hinda ayaa la dhihi jiray, laakiin markuu rasuulku guursaday waxay noqotay kunyadeeda umulqaasim, rasuulkana abulqaasim ama abalqaasim. saasay ayadu ahaydoo wixii hore ninka u soo dhashee lagu kunyeyn jiray waa la dhaafay. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam canugiisii ay u dhashee qaasim ahaa ayaa loogu magac daray. ummu qaasim ayaa markaa la yidhi khadiija radia allahu tacaala canha. khadiijo xagga xasabka aad bay uga sarraysay, xagga nasabada ama nasabka way ka sarraysay.
intaa waxaa usii dheeraa gabadha qurayshiyada ah inay ahayd dadka magaalada maka degan kuwa ugu hantida badan radia allahu tacaala canha. ilaan ilaahay yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir. ilaahay qofkuu doono risqigu u waasiciyaa, qofkuu doono waa ku ciriiriyaa. dumarkii tujaarta ahayd ee farakutiriska ahaa ee magaalada maka deganaa ayay ka mid ahayd khadiija radia allahu canha. khadiija ilaahay baa hanti siiyey. mufasiriintu marka ay fasirayaan ilaahay qowlkiisa uu leeyahay wawajadaka caa'ilan fa aghnaa, mufasiriinta qole waxaa ka mid ah dhahaysaa waxaa loola jeedaa nebi moxamedow ceyr baad ahaan jirtay, faqiir baad ahaan jirtay, ari baad raaci jirtay, sanuud yar bay reer maka ku siin jireen inta arigooda aada ugu raacdo kaymaha iyo buuraha shacabkooda. markaasaan ku taajirinay, khadiijaad guursatay, hanti baad heshay. qaraasaa yidhaahdaa inkastoo la yidhaahda cayrnimada iyo taajirnimada, cayrnimaduna waa inuu qofku diinta faqiir ka noqdaa, hanti laaba uu ka ahaadaa, salaadiisu ay yaraataa, iimaankiisu uu yaraadaa, waa qof faqiir ah. aqniga iyo taajirnimaduna waa inuu qofku diisa ay deeqtoontaa. laysa alghinaa can kathrati alcard buu dhahay nebiga, ma aha hantida faraha badan taajirnimada, laakiin taajirnimada la sheegayo waa inay naftu khina noqotaa, waa inay naftu noqotaa naf taajirad ah, waa inay naftu noqotaa naf ilaahay subxaana wa tacaala wax allaala waxa uu siiyey ku qanaaco qaadata, wax allaala wuxuu ilaahay siiyey jeclaata, raali ku noqota, aan ilaahayna ka eed sheeganin subxaanahu wa tacaala. idan khadiijo waxay ka mid ahayd dadka ilaahay hantida siiyey subxaanahu wa tacaala, oo nasab wanaag, xasab wanaag, sharaf wanaag, qurux wanaag, intaasoo dhan waxaa usii dheereed afriyaabay ahayd, maalqabeenad magaalada maka degan, waxaana u furnaa ganacsi aada iyo aad markaa u weyn. khadiijo raggay istijaaran jirtay, raggay kiraysan jirtay, bacdamaa qof dumara ay tahay oo meesha raggu ay ka boodaan aysan ka boodi karin, haddana inta badan raggay istijaaran jirtay, way kiraysan jirtay, waxay la safri jireen hantideeda, way u suuq geyn jireen, ganacsi bay u gelin jireen. saasay ahayd radia allahu tacaala canha. saasay markaa ahaan jirtayoo istijaaray samaysan jirtay. marba qof bay tijaabinaysaa, way qaadayaan oo shaam baa loo geynayaa, yaman baa la geynayaa, sida ilaahay reer quraysheed uu u baray rixlata shitaa'i iyo labada rarasho, tajilaalka iyo midda xagaaga buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. rasuulka sala allahu calayhi wasalam saan soo tilmaanay wuxuu ahaa mid ariga raaca. sababtuna waxay tahay nebi ma jirin ilaa wuxuu raaci jiray hanamka, wuxuu raaci jiray ari. adigana bala yiri nabiga sal alla alayh wasalam, adna xataa aniga buu yiri. reer maka ayaa waxoogaa qaraatiid iyo sanuud intaan ka qaatay isiiyaan, yaan buuraha dhakadooda ugu raaci jiray ariga. nebiga sala allahu calayhi wasalam intaa wixii ka dambeeyey waxay dadku ku arkeen amaaraad, calaamaad aada iyo aada u fiicfiican oo qurux badan. maxaa ka mid ahaa? aaminnimo, dabeecad wanaag, inuu xoolaha dadka aada iyo aada u ilaalinayo, warci inuu ku sugan yahay, ilaa magaalada maka oo dhan laga wada jeclaaday, saqiir iyo kabiir, rag iyo dumar. waxaa loo bixiyey muxamedkii aaminka ahaa, muxamed alamiin, muxamedkii amiinka ahaa ayaa loo bixiyey. gabadha lagu magacaabo khadiija binti khuwaylad, bacdamay ragga ay kiraysan jirtay, waxaa soo gaaray wiilka dhallinyaraha ah, dabeecadaha fiican ee markaa uu leeyahay
adeeg bay u dirtay. markay fariin u dirtay uu u yimid ayaa waxay ka codsatay tookadan iyo kolkan in xoolaheeda intay u dhiibto uu u ganacsi iyo tijaaro geeyo. waa ka ogolaaday. xoolihii Khadiijo la baxay. xaggee buu aaday? ila Shaam. wiil adoon ah oo ay lahayd oo Maysar la yiraahdana way ku dartay bal inuu Maxamed raaco. rasuulku mar allaala markuu ka ogolaaday Khadiijo in hantida uu u qaado, inuu u suuq iyo ganacsi geeyo, wiilkaana ay ku dartay, asagiina uu ogolaaday, uu aqbalay, ayuu nebiga Shaam ayuu aaday oo xoolaheedii ayuu u tijaareeyey. fadli ilaahay, wanaag alle xaggiisa ka yimid darteed, wiilkan barakaysan ee sharafta leh xoolo gacanta uu ku dhigay oo aan lagu khasaarayn darteed ayaa wuxuu u keenay ribix ka badan ribixii loo keeni jiray. nin walba oo baxay, qof walboo xoolo soo ururiyey ee Khadiija u soo xaadiriyey way dhammaan weysay kii nebi Maxamed uu keenay sala allahu calayhi wasalam. nebina ma aha markaa, weli lama soo bixinin oo lama soo dirin. waa ka soo laabtay Shaam oo makuu u soo noqday. wiilkii Maysar ahaa wuu yaaban yahay. wuxuu la yaaban yahay waxyaabaha uu ku soo arkay ninkan ee cajaa'ibta badan. waxyaabahan cajaa'ibta badan ee Maxamed uu ku soo arkay ayuu la yaaban yahay. Khadiijo u yimid, nebigana hantidii buu u daadiyey, ilaa wax kaloo ka dhexeeyey ma jirin. in kolkan uu u qaado, uu u ganacsi geeyo, waa u geeyey. ribix aan weligeed aysan arkin loona keenin ayuu Maxamed u keenay Khadiija. gurigiisu iska aaday. Maysar wax allaala wixii sifaad ah, dabeecad wanaag ah, ammaano ah, mucaamalkii dadkii uu la mucaamaloonayay oo dhan ayuu u tixay, una sheegay, ugana sheekeeyey Khadiija radia allahu tacaala canha. wixii oo dhan buu markaa uga sheekeeyey iyo wuxuu ku soo arkay ee qislooyinkii wanaagsanaa markaa ahaa. intaasoo dhan ayuu markaa u soo taanataaneeyeyo xabad xabad ayuu markaa ugu sheegay wixii uu la soo kulmay asaga intuu la socday sayidka Maxameda calayhi salaatu wasalaam. way jeclaysatay. allahu akbar. nin kastoo wacan, nin kasta oo fiican, nin kastoo aamin ah, nin kastoo ilaahay kitaabkiisa ku dhagan, dabeecad fiicanna leh, dumarku way jecel yihiin. maxaana laku nacay maanta mataqaaniin? maxaana laku nacay? maxay nagu naceen? maxay noo habaaraan? dabeecaddeenaa xun, khuluqdeenaa xun, ammaano fiican ma lihin, sir dad ilaaliyaa maana nihin, gabdhihii kariim looma aha. waxyaabo fara badan oo noocaasoo nagu sugan darteed ayaa keenaysaa inay dumarku nanacaan. war qof nolol fiican diidaya ma aragteen idinka weli? waa maya. waxaan arkaynaa oo aan la kulannaa gabar inta la guursaday aqalka loo dhigay. waad yaabaysaa. kuwa markii albaabka gasho way is arkaysaa muraayadaha, midna kor bay ku dhegan tahay, mid hoos buu ku dhegan yahay. iska daa mee kale xataa xamaamka musqusha markay gasho oy qubaysanayso way is arkaysaa. afarta dhinac bay iska arkaysaa. musqulle la joogaa bas. ka soo bax. xagee la imaana? qolka fadhiga. alaabta taala xadith walaa xaraj. ka sheekee, dembi ma laha. say u qurxoon tahay. haddaad ku fadhiisato, haddaad doonto way kula soconaysaa, meelay ka taabanaysaa. haddaad doonto way taabanay, way la soo noqonaysaa. hadday doonto meel bay ka taabanay, sariir bay noqonaysaa. mise been waay? sariir bay noqonaysaa. wallahi miis buu noqonayaa. kasoo gudub, qolka jiifka imow. ma sii wadi karo. gabar noocaas ah xaaladeedu saas ay tahay, kawar hadday soo istaagto ninkaa maba rabiba. xaggee ku noqonaysaa? sariirtii catiir baa la dhahaa ay ku seexan jirtay guriga hooyada tiilay.
laa xawla walaa quwata ila billah. maxaa keenaya walaalayaal? ma isweydiinay annaga? ma fahmnay weli? waxay ka doorbidaysaa garoobnimo, waxay ka doorbidaysaa inay miis ay dhigato suuqa barbaraha ku gado la yiraahdo. xaggay ka soo baxday noloshaan? xaggay ustaa meesha? khadiija radia allahu canha waa mithaal, waa tusaale cajiib badan. mar allaala markii looga sheekeeyey sifaadka, mar allaala markii horeyna hadal ay u haysatay, maxay samaysay? way jeclaysatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. faraqibat, weliba jacayl keliya ma ahee inay nolol la wadaagto ninkaa qiimaha badan ee sharafta badan ayay jeclaysatay. nebi maxamed bay adeeg u dirtay sala allahu calayhi wasalam. weli nebi ma aha, weli lama soo saarin. bictha iyo nebinimo hadduu gaaro, jibriil uu u yimaado ou la hadlo, waxii samee lagu soo dejiyo, suu noqon doonaa hadhow. hadduu sidan yahay, hadduu dabiicad fiican yahay, hadday ummadii jeclaadeen. maxay khadiija rag fara badan ayaa tijaaro iyo ganacsi moxamed hortiisa u qaadaye ay u jeclaan weysay? maxay ugu soo bandhigan weysay guur? kama aysan helin, uma bogin, wax badan ma aysan arkin sifa ay markaa ku raacdo. laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mar allaala markii ribix badan uu u keenay, maysar uu u markhaati kacay wulaamkeedii, waxay jeclaysatay in ay guursato ama asagu guursado. adeeg bay u diratay, nebi moxamed waa u yimid, arrintii bay u bandhigtay, waana ka ogolaaday. allahu akbar. khadiijo maxay ku raacaysaa? maxay ku dooranaysaa rasuulka? akhlaaq wanaag. maxay ku dooranaysaa xushmad fiicnaan? maxay ku dooranaysaa aaminnimo? intaba kuma doortaan maanta gabdhaheena ragga ay guursanayaan. ay laftooda qaladka waxbay ku leeyihiin. intaba kuma doortaan. aaminkiisana ma fiiriyaan, ma fiiriyaan aadaabtiisa, ma fiiriyaan dulqaadkiisa, ma fiiriyaan raxmaduu markaa leeyahay. markaasaa hadhow waxay noqonaysaa jaxiime ay guri usoo gashay, libaax afkiisa inay kusoo dhacday. markaasay leedahay maya, guurku waa iska nasiibo, waa god abeeso gacanta la gelina. yaa ku yiri god abeeso? meel ka baxda ma joogto. markaad dhahdid maxaa nasiib waay ku leedahay. god abeeso gacan wax kaaga soo baxaya ma ogid. waa lagu qaniinaa ama suuga lagu marinaa, sooma? khadiija radia allahu tacaala canha, ilaahay ha ka raali noqdo. khadiija waxay islaamka u qabatay, khadiija waxay islaamka u tartay dhammaanteen haddii laisku dardaro uma tarin. nabiga u duceeyey sala allahu calayhi wasalam. way noo imaan doontaa qisada dhexdeeda inuu ilaahay usoo bishaarayn doono guri jannada ku dhex yaala. khadiija radia allahu tacaala canha. dumar, gabdhaha maanta joogo, war dumarka maanta ilaahay subxaana watacaala diintiisii ku tuntay, dhagaysta oo maqla. gabadhan qiimaha badan si ilaahay diintiisa ugu halgamaysa subxaanahu watacaala. intaa wixii ka dambeeyey rasuulku wuu ka ogolaaday sala allahu calayhi wasalam. rasuulku waxaas ay u soo bandhigatay oo ay u sheegatay wuu tixgeliyey. codsigii gabadha wuu ka ogolaaday rasuulka, waana tixgeliyey. adeerkiis xamsi bni cabdilmuطalib ayaa u doonay khadiija, ayaa u doonay. nebigu wuu guursaday sala allahu calayh wasalam khadiijo intaan lasoo dirin, nebina laga dhigin 15 sano ka hor. 40 jir bay ahayd radia allahu tacaala canhaa. cumriga sayidkeenana wuxuu ahaa 25 sano. shan iyo 20 jir ayuu rasuulku ahaa sala allahu calayhi wasalam. 25 jir ayuu rasuulku ahaa, iyaduna 40 jir ayay ahayd. ilaahay ha ka raadi noqda khadiijo
radiallahu tacaala canha. xaaladdu markay meeshaa maraysa walaalayaal, rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo gurigeeyey khadiija, wuxuu helay xayaato ta u fiican, wuxuu helay nolosha midda ugu wanaagsan. yuu ka helay gabar 40 jir ah. waa imise jir? waa 25 jir. sala allahu calayhi wasalam 25 sano ayuu jiraa. 40 sano. maxaa la isku doortay? waxaa la isku doortay diin ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa la isku doortay in ilaahay manhajka iyo kitaabkiisa sare loo qaado. waa la isku kaalmaynayaa. wiilka yar ee islaamta maalqabeynta maanta guursanaya ka weyn ee suuqa dahabka ah iyo dukaamada iskale, muxuu u guursanayaa? ka biyabiyeyso saba, ka biyabiyeyso. iska daa inuu ka biibiyeystay asaa laga biibiyeysanayaa. hunguri waa runtiisa, hunguri buu u galayaa. xataa dhihi maayo lacagtan ay hayso aan islaamka ugu faa'iideyno, aan dadka wax ugu tarno, aan diinta islaamka ugu adeegno weli maayo. cabaar markuu joogu leeyahay hooyaday aa soo hadashay $200 $200 beele. sababta waxay tahay ma aha hamigiisa kan u weyn inuu islaamka cizeeyo korna u qaado. waxay markuu joogo wuxuu leeyahay war halkaya tahriib aadaye $5,000 ilaa la soo ceeriye. marka dambe haba la soo ceeriye intuu ka biibiyeysan oo ka biibiyeystay wuxuu ka daadsan karo gabadhii maskiinta ka daadsaday, ayaduna waa daacad. laakiin nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo guurka khadiijo farqiga u dhexeeya fiiriya walaalayaal. meeqa u dhexaysa? 15 sano soo maaha ayay ka weyn tahay. ilaahay wuxuu ka siiyey awlaadda oo dhan oo nebigu u sala allahu calayhi wasalam wixii ibraahim ka soo haray. sayida khadiija u dhashay ilmaha oo dhan. ibraahim maahane. zaynab 1 dheh, ruqaya 2 dheh, umu kalthum 3 dheh, faadima 4 dheh, qaasim iyo cabdullaahi 7 soo maaha. 7 aydaa dhashay. maariya ibraahim dhali doontaa oo addoon uu nebigu lahaa ay tahay. ibraahim maariyaa dhalaysaa. cayaalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dhan khadiija dhashay. gadaal baan ka arkaynaa wuxuu dhihi doonaa khadiija faraha iiga qaada. hadal dheer kadib awlaad buu ilaahay iga siiyey. awlaad buu ilaahay iga siiyey subxaanahu wa tacaala. awlaaddaas ay dhashay oo nebi moxamed ay u dhashay dhammaantood wiilasha ma ahane way wada qaangaareen. amaa wiilasha waxay kaga dhinteen yaraan, umushay ku dhinteen. xataa ibraahim calayhi salaam, ibraahimka maariya ay dhashay, waata rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu u soo galay ibraahim oo naftiisa ku saqayoonahay, bixinaya naftiisa. wuu u soo galay rasuulka isagoo sakaraad ah, indhiisaa daadaatay, waa ooyey sala allahu calayhi wasalam. rasuulkii ilaahayow maxaa waaye waxaan baa la yiri. mid kaluu soo raacsiiyey, ilin kale ayuu soo raacsiiyey. raxmad waayuu dhahay midaan aada u jeediin, naxariis waaye buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. cabdullah umushuu ku dhintay, wiilashiisii umushay ku wada dhinteen. ibraahimkaasa ugu dambeeyey. weliba maalintii uu dhintay qoraxdaa madoobaatay. markaasay saxaabadu waxay dhaheen qoraxdu waxay la madoobaatay bimowti ibraahim, ibraahim geeridiisa. hadhihina buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. qoraxda iyo dayaxaba waa 2 aayadood oo aayaadka alla ka mid ah. uma madoobaadaan axad geeridiisa iyo noloshiisa labadaba. haddaad aragtaan salaada u degdega, ilaahayna barya subxaanahu wa tacaala. nebiga ibraahim markuu saa u sakaraadayay muxuu yidhi? ibraahiimow faaruqitaankaadna faaruqaysa lamaxzuunuun, waa ka murugaysannahay, mana ku hadlayna wuxuusan ilaahay raali ka ahayn subxaanahu wa tacaala. murdic buu leeyahay, wax nuujiyaa.
oo u dhammaystiri doona nuugmadiisa jannada dhexdeeda. rasuulka suu tilmaamay aw kamaa qaala sala allahu calayhi wasalam. khadiija awlaada nebiga dhammaan iyadaa dhashay, khayr allah siiyo. zaynab ayadaa dhasho hooyo u ahay. ruqaya ayadaa nebiga u dhashay. umu kalhuum ayadaa u dhashay. faadimana ayadaa u dhashay. faadima ugu yareed baa la yidhaahdaa awlaada nebiga. zaynabaa u weyneyd. zaynab taariikh weyn bay leedahay laftigeeda oo aan caawa ka gaari karin inaan ka sheekayno. ruqaya iska daa. ruqaya yaa guursaday dinnuurayn, cuthmaan ibni cafaan. walaalayaal, way ka dhimatay. markaasuu rasuulku umu kalhuum siiyey haddana, radia allahu tacaala canha. dinnuurayn maxaa loogu bixiyey? 2 gabdhood oo nebigu dhalay yuu guursaday midba mar. ruqaya markay ka dhimatayna umu kalhuum baa la siiyey. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ruqaya waxay geeriyootay markii dagaalkii beder uu jiray laga soo noqday. umu kalhuum buu rasuulku siiyey sala allahu calayhi wasalam. markii umu kalhuum la aasaayey, nebiga indhihiisa biyaa ka socday, qabriguu ag fadhiyey. wallaahi buu yidhi mid saddexaad oo madax banan haddaan hay lahaa waa siin lahaa cuthmaan, radia allahu tacaala canhu. walaalayaal, saxaabada nebiga qisadooda, sheekadeeda waxay leedahay dhadhan gooni ah, mucjizo gooni ah, macaan gooni ah. waayo waxaa ku dhex sugan cibradaasoo ilaahay uu ugu talagalay dadkii rasuulka la noolaa sidii ay noloshoodu ahayd. taasaa markaa lasoo sirdinaa, taasaa markaa ummadda loo soo bandhigayaa. umu kalhuum iyo ruqayana saasay kala ahaayeen. faadimana waa tii uu guursaday cali radia allahu tacaala canhu. inta awlaad ee uu dhalayna rasuulku wuxuu ugu jeclaa faadima radia allahu tacaala canha. faadimo ayuu rasuulku ugu jeclaa baa la yiri. kulli way ka geeri horeeyeen ilaa faadimo ma ahane. dhowr bil bay ka dambeysay. rasuulku markuu dhegta ugu sheegay waxna way qososhay baa la yiri. haddana waxbuu horta way oysay, haddana wax kaluu ugu sheegay, haddana waa qososhay. caaishaa ka hari weysay. rasuulku wuxuu ii sheegay bay tiri markaan ooynayey, xanuunkaan ihaayo kama kacaayo, waa midkaan ku dhiman lahaa, waa ooyey bay tiri. markii labaadna wuxuu i dhahay qofka ugu horeeya ee ehelkeyga isoo haleelaya adiga waaye. taariikhda qaar waxay tilmaamaysaa waxaa tahay sayidada dumarka ahlu jannaha. waa qoslay bay tiri radia allahu tacaala canha. waa faadimo. marka caruurta dhammaan rasuulka waxaa u wada dhashay khadiijo radia allahu tacaala canha. intaasayna ahaayeen. waxyiga markii rasuulka lagu soo dejiyey fii gaari xira asagoo ku jira, ilan khadiiju u imaan jiray, sahay buu ka qaadana, markay kasoo dhammaato waa usoo noqona. haddana saasuu ahaa xaalkiisa. asagoo gaar xira ku jira yaa waxaa oyid malakul jibriil. wuu cabsaday marka. fasac iyo argagax daran ayaa nebiga qabtay. wuxuu usoo orday dhanka khadiija asagoo musricoo soo degdegahaya, qalbigiisu uu boodboodayo, oraahdiisu ay tahay zammiluunii idada iduuduuba. mar allaala markii cadii ay ka dhammaatay oo ay wacdisay, asagiina uu u waramay hadalkiisii, waxay tiri ha cabsanin, kallaa, ilaahay baan ku dhaartay, ilaahay ku hoojin maayay tiri. weligaa way qaraabadaad xiriirisaa, hadalka runtaad ku hadashaa, culeyskaad xambaartaa, waxa la waayaad kasabtaa, wax ma qarisid, martida waad soo dhowaysaa, xaqana waad u kaalmaysaa. gacantay ka qabatay, waa waday, waxayna u geysay waraqa ibnu nawfil ibni cabdilcuza. ilaahay buu caabudi jiray waraqa. indhool buu ahaa, oday weyn, ila adeerkeed buu ahaa. cilmiga towraad iyo injiilna waa yaqiinay. markuu rasuulku wareystay oo loo sheegay wuxuu meesha kula kulmayna, wuxuu dhahay haadaa naamuus, kaas kuu yimid kheyr wada waay. kheyr wada waaye, waa kii lagu soo dejin jiray muuse u yimid waay. muuse ninkii u yimid waay. nebiyaasha midka lagu khatimay baa tahay.
maalinta ummadaadii qoomkaagu ay ku bixin doonaan maan ahaada canug yaroo markaas ilka jabsaday buu yidhi. rasuulka asagoo yaaban buu dhahay awa mukhrijyahum kuwama ay bixinaya saan ii jecel maanta habaa la yidhi. waxaad la timid qof la yimid ma jiro ilaa waa lala colaytamay, waa la nacay, waa lala dagaalay. haddiise aan soo gaara maalintaas waa kuu gargaari doonaa, gargaar mu'asar ahoo adag oo xoog badan ayaan kuu gargaarayaa buu yidhi. laakiin odagii maba daahine wuu dhintay. rasuulka sala allahu calayh wasalam intaa waxay ka dambeeyey dacwadii buu xambaaray. khadiija dhinac ka qabatay, dhinac ayay kala xambaartay. mar walba oo dhibaato iyo masaacib iyo mashaakil uu kula soo kulmo bannaankana guriga mar allaale markuu yimaado way dejin jirtay. diintii waxay lawday markii inay kor u kacayso. weliba markii intaa la yidhi waxaad tahay khaatimulmursaliin uu dhahay waraqo ugu bishaareeyey, qofkii ugu horreeyey bay noqotay khadiijo oo rumaysa risaalada nebiga sala allahu calayh wasalam. dhanka dumarka marka la fiiriyo, islaamkii wuxuu bilaabay inuu xoogaysto, inuu sii darnaado. quraysh gaaladoodii aad bay uga xumaadeen ilaa markii dambe la gaaray in lagu soo rogo quraysh cunaqabatayn. reer bani haashim lagama guursan karo, ma loo guurin karo, ma laga gadan karo, ma laga gedi karo. waxyaabo fara badan ayaa laisugu yimid. reer bani haashim xaafadoodii ayaa la isugu yimid. khadiija ma aysan dhin bacdamaa shisheeye ka tahay isaga baxadi, naag 3 keentay baa tahay ma dhihin. laakiin maxay samaysay? way la dhex gashay. xisaarkaa nebiga lagu sameeyey cunaqabataynta asaga iyo dadkiisa muslimkoodii kaafirkooda iyay kala qayb qaadatay. way dhex gashay. hantideedii wixii ay lahayd wanaagyaalkeedii oo dhan maxa u bedelay? ciriiri iyo dhibaato. 3 sano cunaqabatayntu ku socotay. waxay u dulqaadatay baahidii, waxay u dulqaadatay tacabkii, waxay u dulqaadatay mashaakilkii, ilaa jiifka la cuno, ilaa bakti la cuno, ilaa waxyaabo fara badan la gaaro. qisada xisaarka ayadana qiso gooni ah oo cajiib badan bay lahayd, oo dhinac kale ilaahay islaamku uu ku tilmaamay. markii laga bixiyey oo ay ka baxeen xisaarkii ayay xanuunsatay radia allahu tacaala canha. way xanuunsaneed ilaa ilaahay oofsaday subxaanahu wa tacaala hijrada ka hor 3 sano. 1 sanay wada dhinteen khadiiji abi aalib. labadooda gacantay ku hayeen nebiga. intay labadoodu joogeen waa looga baqi jiray, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisu waxay keentay 1 sano labadooda inuu isla dilo ilaa loo bixiyay caamulxusn, sanadkii murugada. jibriil baa ugu bishaareeyey nebiga sala allahu calayh wasalam oo yidhi ilaahay khadiija salaam buu usoo diray, wuxuuna ugu bishaareeyey guri oo min qasabin ah, saydata khadiija oo jannada ku dhex yaala, laa sakhba fiihi walaa nasab. buuq male gurigaas. maxaa loogu abaalguday? nebigay buuqa ka ilaalin jirtay, way dejin jirtay. mar allaala markay aragto inuu maxsuun yahay, tiiraayeysan yahay, tiraayaday ka tirtiri jirtay. ama ninku daaci ha ahaada hadda ama yuusan ahaanin, naagii waxaad moodaa inay adduun unbay raaceen. dumarkii la qabay waxaad u malaysaa adduun maahane wax kaloo kugu kaalmaynaya, wax khayr kugu kaalmaynaya inaysan markaa jirin. in yar oo rabbi u naxariistay maahane subxaanahu wa tacaala. aawa dahabka iga ballan qaaday nin la yiri gormu dacwo wada wadnaha inuu ka kala go-a maahane. meeshaana maxaa la leeyahay? ha murgooni, ha cabsanin, ilaahay baa kula jira. kallaa wallaahi laa yuqziyaka allahu abadan. weligaa ilaahay ku hoojin maayo. walaalow hamoonin, annaga hanaga murgoonin, dahabkeyga haka murgoonin, dacwada ilaahay wad. qofka marka saa la yidhaahdo iyo markaa lahaya soo hadda albaabka soo galay, hooyaday waa qeelinaysaa soo hadashay, beri u dir. ma haysaa? ma heshay? si alla kuu qadaray ma jirto. walaala khadiija darsigeeda darsiga qaata dumarow, wax badan ka fahma. waa maal qabeen, mare ay xiratay weysay radia allahu tacaala canha, ciriiri bay ku jirtaa. nebigay la gashay sala allahu calayh wasalam. markay guursanaysay hadda
dumarka joogan sheegayaa lacag baa lagu raacay, wax kastaa loo sameeyey. gabdhaha hadda idinkaga tilmaamay meesha wixii jooga oo qarashkooda usii socdaa, maalintuu faqiirtoo maxay leedahay? maxaan ka ag samaynaa waaye, maxaa iyaga ag samaynaa maxay tahay? soo isma qabin. ma waxaa igu rabtay keliya 2000 intay jirtay, gaariga intuu socday, intay shaqadu jirtay, inta akoonka wax kusoo dhacaayay, maalintuu xanuunsada waaba ka daran tahayba. waraan saxaraada iyo kaadaada ma dhaqi kariye 3 isiyaa taala, haddii kale qaadigaa u tagaa. ma tiri Khadiija radiyallahu canha, maxamed saaxiibow adi wanaagaa naga dhaceeyey bacdamaa tolkaagu kugu kaceen, mac salaam 3 isii. maya, wallahi way dhex gashay. xanuunkan xaggee uga yimid bacd allah? xiriirgaasuu uga yimid. khadiija markii laga soo baxay oo xisaarkii laga qaaday ayay xanuunsatay radia allahu tacaala canha. maantan intuu carfay basaa la rabaa, saabuunta lifbayg uu ku qubaysan karo, barfuunka oo wanmanshooma laha kaasna intuu kasoo carfaayo, intaasay dumarkuna rabaan. ilaa in yar maahane, farakotiris ah maahane. ilaahay nooma kasay haddaan sariir korno xanuun na qabto, waxana la joogaya aad bay u yar yihiin. hortiyadaan u yaraayo ku leedahay, hortiyadaan u yaraayo. war shalay hortaadaad u yarayd, ana hortiyadaan u yaraaye baa isku aaqabeysano, laisku aakhiraysto ma jirto. maya abdiska keefas aan hortiyadaan u yaraayo, gabar yar baan ahay. inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun. maba naqaanba xayaatada nolosha waxa loogu talagalay, maba naqaanba halkaa uu yahay. khadiija radia allahu tacaala canha, ilaahay wuxuu ugu bishaareeyey guri jannada ku yaala oo aan buuq lahayn. bacdamay rasuulka buuqa ka ilaalin jirtay, nasab iyo daal iyo tacabna aan lahayn. adduunkay ku tacabtay ee ku dhibtootay, aakhira way nasanaysaa. rasuulku wuxuu ahaa sal allahu alayh wasalam mid aada u sheega xataa gerideeda kadib. khadiijo 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 mar walba heer ay ka maseyrtaan la gaaray. caaisha waxay tiri weligee naag leela qaba kama masayrin saan khadiija uga masayray, mana arkin bay tiri. waxaan kale ka soo haroo dhan oo ila jooga oo aan arko ayagana i arkay way ka badin jirtay. kama masayri jirin. mar allaala markay hadlaan oo ay wax dhahaan, war naga aamusay dhihi jirtay, geeda la daaqay baa tihiin. bacdeeda anoo qaba yaa rasuulka soo galay sal alla alay wasalam. car ii sheega naag gabarnimo uu ku guursaday nebi maxamed oo aanay ahayn. xataa khadiijo afkay u dhigan jirtay, afkay qaban jirtay dhammaantood. laakiin khadiija ma aho, khadiija waa egayaabaysa bay tiri, weligeedna maysan arkin naag ka maseeraysa, naagaysan weligeed arkin, filim daawanin. maxaan uga maseeray bay tiri, nebiga wuxuu badin jiray sheegeeda. khadiijo khadiijo buu ku jiraa. cajuuz maalin intaan iscelin waaye waxay tiri, waxaan iri cajuuzo qurayshiyad ah, daamanka ka gadgaduudan oo saan ah oo duq maxaa u sheegaysaa mar walba? maxaa ka sheegaysaa? mid ka fiican, gabar ah, saan ah, bigra ah, jalaqsan, qurux badan baa ilahay kugu bedelay subxaana wa tacaala. iyada isku jeedaa taasuuba ilaahay kugu bedelaye, duqdan cajuuzada ah warkeed maxaad u haysaa mar walba oo waqti hore dhimatay? mayuu dhahay rasuulka sal allahu alayh wasalam. way i rumaysay markay dadka i beeniyeen, ama aamanat bi id kafara bi annaas, markay dadka igu kufriyeen bay rumaysay. way i aamintay markay dadka i beeniyeen, maalkeeda ayay igu xiriirisay markay dadka ii diin. ilaahayna walad ayuu igu arsuqay subxaanahu wa tacaala. mar allaala markii ilaahay laygaga xarimay naag kale inay ilmo ii dhasho. yaa naag ahoo dumar la qabay ah oo nebiga sala allahu calayhi wasalam awlaad u dhashoon khadiija ahayn, marka laga reebo maariya. maya buu yidhi, maya buu dhahay. caaisha ha dhihin sidaa, wax ii bedeli kara khadiija ma jirta buu dhahay rasuulka sal allahu alayh wasalam.
saa doonta gabar u ahaw, saa doonta wax u ahaw. intaasay samaysay khadiijo radia allahu tacaala canha. walaalayaal, khadiija binti khuwaylid, khadiija ilaahi subxaana wa tacaala wuu karaameeyey say diinta u karaamaysay. ilaahay wuu sharfay say diinta u sharaftay. ilaahay kor buu u qaaday, wuu cizeeyey say diinta u cizeysay khadiijo radia allahu tacaala canha. inta dumarkeena ay diin cizeeyaan, oy sharaf kula dadaalaan, oy raggooda dacwo inay ka qayb qaataan ay kula dadaalaan, you ilaahay cizaynayaa subxaana wa tacaala. intay ayuuto dahab guri wa ay ku jiraanna sidoo lay ahaanayaan weligood. buqdiga iyo dagaalka iyo xanaaqa iyo waxyaabaha kale aa weligii markaas soconaya. nabiga sala allahu calayhi wasalam neef haddii lagu qalo gurigiisa, asiqada khadiija uu diri jiray, uu dhihi jiray ha loo geeyo. xataa iska daa wax kale, isti'daanka haala ka khadiija kusoo xasuusan jiray. haala binti khuwayl dumaashidiisay ahayd, nebiga khadiija la dhalatay. mar allaala maalin intay timid ee istidaan qaadatay, wuxuu soo xasuustay istidaankii khadiija. allaahuma haadihi haala buu yidhi radia allahu tacaala canhaa. khadiija ma soo koobi karno sharaftiina qabada iyo cizada goonida ah ee ilaahay siiyey. balse ilaah xaqa hana waafajiyo, taacadii diintana allah nagu sugo. meeshaasaan kusoo gabagabaynaynaa qisadii khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha. wabillahi towfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.